xaaladda magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa lagu soo waramayaa in iminka ay tahay mid degan taa oo saaka ay ku dagaalameen ciidamo ka tirsan dawladda kuwa Galmudug oo isku dhinaca iyo dagaalyahana ka tirsan culimo diinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Shide oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidanka Galmudug iyo kuwa dawladda ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud isla markaana ay ka saareen dagaalyahanadii ka tirsanaa culimo diinka Ahlus Sunnah shir jaraa'id waxaad ogtihiin muddo bilah in kooxaha dawladdiidka magaca sunno xambaarsani ay qabsadeen magaalada Gurceel halkaasoo ay lumiyeen dhammaanba kala dambeyntii iyo sharcigii ay u hoggaansan diideen ay keentayna in dadka shacbiga ay ka qaxaan ganacsiga iyo noloshuna ay xirmaan muddadaas bilsha ciidamada labada heer ee dawladda waxay ku sugnaayeen goobahooda dawladduna waxay ku baaqaysay oo dhageysanaysay si walba oo nabad ah oo aan dhibaato uga dhicin inay nimankaas uga baxaan deegaanka loona ilaaliyo inuu halkaas ka dhaco dhibaato shacab waxaase nasiib darro ah saaka aroornimadii hore iyagoo soo dagaalgeliyey ardayda dugsiyada qur-aanka iyo haween iyo dad da-ah inay soo weeraraan fadhiisimada ciidamaduna waxay uga jawaabeen si kulul ayay uga jawaabeen waxayna gaarsiiyeen jawaabta ku habboonayd halkaa waxaa ka yimid firxad iyo kala yaac waxaa ciidamadu ay gacanta ku dhigeen arday yaryar oo ilmo yaryar ah oo ardayda dugsiyada qur-aanka ah annagoo uga digayna una sheegayna ciidamadu inay si raxmad leh ula dhaqmaan ciyaalkaas yararkaa la qabtay oo lasoo qalday dhammaanbana goobihii ay awal joogeen ciidamada dawladdu waa la wareegeen firxadkooduna wuxuu u baxay dhinaca miyiga raggii ka dambeeyey arrintan noocaasa iyo faldambiyeedyada looga hor imaanayo sharciga dawladda iyo kala dambeyntana waa lagu raad joogaa waxay mudan yihiin ayaana ay dawladdu la qaadan doontaa dadka reer Galmudug ama dadkii ka barakacay deegaankaasna dhammaanba waxa loogu baaqaya inay deegaanadooda si nabad ugu soo noqdaan dawladduna waa taakuleynaysaa ciidamadana waxaa la amrayaa maxaabiistu darajeed doonta ha lahaato cid kastoo la qabto in si naxariis leh loola dhaqmo oo loo soo dhoweeyo oo loo xanaaneeyo ama dhaawac ahaadaan ama ha fiyoobaadaane cid kasta oo dawladdu waxay u digaysaa arrimaha noocaasa ee lagu burburinayo dawladda Galmudug ee lagu carqaladeynayo kala dambeynta iyo sharciga meel kastoo iyo daraf kastoo ay Galmudug ka joogaan dawladdu isha ayay ku haysaa waxayna ku qaban doontaa gacan bir ah loomana dul qaadan doono waxaan u baaqaynaa dhallinyarada la qalday ee haata duurka galay si nabad ah inay iskugu soo dhiibaan dawladda ciidamada dawladda waxaan faraynaa inay si walaalnimo ah oo ehelnimo u soo dhoweeyaan aan waxba loo geysan rasaas goosgoos ayaa laga maqlayaa bannaanka magaalada oo la sheegayo inay ku sugan yihiin kooxdii ka tirsaneed Ahlus Sunnah ee magaalada laga saaray ma jiro war ka soo baxay maamulka Ahlus Sunnah oo ku aadan dagaalkii saaka ka dhacay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud Cabbaas Xuseen Muuse 5TV Muqdisho